wasaaradihii soo qaban qaabiyey kulankan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalka kitaabka soo qoray walaal gaas iyo dhammaan ka soo qaybgalayaashiinaba runtii waxaan rabaa aan wax ka iftiimiyo ma dhulkaan dhisnaa horta mise maskaxda waa su'aal taalo weeyo jawaab u baahan guud ahaan ama dunida saddexaad dheh ama Afrika dheh ama Ethiopia dheh aanu intaan goobjooga ka ahay mar walba ribood la bixinayo waxaan arki jiray oo intaasoo wadana waa la dhisay intaasoo isbitaal waa la dhisay intaasoo gaari waa la soo gaday laakiin waa yar tahay inaan maqlo intaasoo maskaxood baa la dhisay nin la yiraahdo Mahathir Mohamad oo wadankan Malaysia la yiraahdo ninka dhisay weey yaa markuu yimid wadanka faqrigu wuxuu ahaa 50% waxbarasho la'aantuna ama dadka waxna qorin waxna aqriin 100% adu wax kontakan wax badan ka yarayn bay ahayd muddo yar oo 22 sano uu joogay yuu dhameeyay wadadkuna dad 40 milyan su'aal baa la weydiiyay waxa la yiri waxaad noo sheegtaa maxaad wax ku bedeshay waan hal jawaab ma ka rabnaa waxyaabo badan baad wax ku bedeshay laakiin halka jawaab ugu muhiimsan wuxuu yiri intaanan wada iyo guri dhisin yaa waxaan dhisay maskaxda bas intaas Malaysia lagu soo ururiyay caaw ninkii tagay Kuala Lumpur iyo London xanuun hadii la soo fardhigo Kuala Lumpur baa ka horeysa maxay la London hadaa tagto tareemo dad wada raacaysa laakiin Kuala Lumpur waxaad raaci tareemo aad badan oo dad wadin intaaba waa different ka yar la sheegi karo Mareykanka markaan kitaabka soo fiirinaya waxaan fiiriyay research centerska ama waxa la yiraahdaa maraakista wax qorta 2000 oo research center baa wadanka ku taala waxaan fiiriyay 10 wadan ee maanta adduunka leader garaynaysa ama hogaaminaysa ugu waaweyn 5 kamidihii oo 5ta ugu horeysay lacagtooda iyo budgetkooda waxay ka sameeyaan 70% aqoonta 5ta wadan ee maanta adduunka ugu dhaqaale badan dhaqaalaha ay sameeyaan waxay ka sameeyaan aqoonta qaybaheeda kala duwan technology way noqon kartaa waxay doonayaan ha noqoto hadda China iyo Mareykanka yaa ugu horeeyaan malan caalamka ganacsigiisa iyo ama awood military ba ama awood dhaqaale ba labaduba waa labada wadan ee ugu badan yihiin research centerskeeda meelaha wax lagu qoro waxaan rabaa inaan dhaho wadanka la yiraahdo Japan oo wada garanayno dagaalkii labaad adduunyada wuxuu ka soo baxay iyagoo nuclear permit lala dhacay dawlad wax walba burburayba waana wadan aad u yar resource male wax ka soo saaraanba ma jiraba malaygana shaqo dagaalkii labaad adduunyada badda ka dhameysteen bad bay lahaayeen oo waxba kuma hadhin marka hadda boqorkii intuu isugu yeedhay maxaan sameynaa waxa la yiri maskaxduna aan gadno wax kale oo inagu soo hadhay ma jiro geel male ari male lo male beer male malay wax jira ma jiro caawa intaana hadda halkan soo wada timid wasiirku waxaan u maleynayaa V8 buu wataa xagee lagu sameeyay V8 horta xagee lagu soo sameeyaa ani ka wato waa gaari laba shirla waa Toyota intaana hadda halka timid gawaaridan ku nimid inoo soo wada dhiibay nin Japan beerna male sideena wabiina male waxbana male xoolana male aqalkiisu inaga gaday marka waxaan rabaa marka inaan dhaho ummaddu soo moogideen iyadoo resource balahayn aqalga kaliya yaa resource noqon kara wadan yar oo la yiraahdo Singapore ninkii aasaasay hadda uu dhintay nin liiw la dhigi jiray oo aad cajiib u ahaa subaxii loo dhiibay xilka yaa wuxuu yiri magaalada ma dhaxmaray markaas ay yiri bal itusa hal meel oo canshuur naga soo gasho waxa la igeeyay bur kawaan dakhsiga iyo ayga iyo waxa isdhax socda aad yaabayso kawaankaas meel wax naga soo galay ku yaal baa la yiri ninkii hadda wuxuu dhintay isaga oo wadankiisu uu aad uga nolol sareeyo wadamada kale ee jaarka laha sida Malaysia iyo kulli soo ka wada sareeyo yani marka transit markaad ku tahay airportka Singapore waxaan ku dhaaran karaa aniga guriga aan degan oo laga yaabo waliba inuu dabaqa sare yahay ama meel dad ay u arkaan inuu meel fiican yahay gudihiisa iyo airportka Singapore baa ka fiican bal meel ku qoro qolkaaga hurdada airport ka sareeyo waliba ma arag meeshaasi mala waxay ahayd kawaankan hadda jigjigay hadda aan u maleynay wax laga qabtay oo kala halkaas wax ka soo gal jiray
meel kale wax ka soo garaan ma jirin inagu marka maanta buugga baanoon ka hadlin maskax inaan kobcino waxa tusaale idin ku filan dadkeenu sida ayna ugu bislaynaa meeshaan marayno hoolkan ku cibra qaado waxaan u malaynayaa caawa haddii sooraan iyo jawaan ay saaka joogi lahaayeen horta imise qof baa imaan lahayd lama soo buuxiyeen labo lacag soo laguma soo galeen fiiri labada arrimood waana la soo buuxin waana lacag baa weliba lagu soo geli laakiin markii la yiraahdo aqoon baa laga hadlayaa dad loo yeeray oo weliba maaragtay laga yaabo wasiirka inay qaadi waayeen oo wallahi bal meesha aan tagno saas lagu yiri Soomaa waxay ku tusaysaa marka inaga iyo buugga ama kitaabka saan u kala fogna wuxuu iftiimiyey wasiir Cabdiraxmaan dhibka ka jira intii projectiyo la sameeyay haddana u burburaya dadkii oo fahansanayn dadku qaladku ma aha waa dawladda samaysay dadkii oo ayna dhisin u fiirso bahalkan faraska soo gadaal ama gaari dameerka soo gadaal bahal lagama xidho ka haddaan hormarin oo dameerka gadaal marinaysa noqon miyuu soconaya anaga marka hadda aan mashruuc intaan qaadno weyn aan magaalo ka dhisayno dadkeedina wax fahansan ba uunan jirin qaladka ma inaga mise shacabka saalan insiini dawladdii hore ee cabdi baan mar la taliyo ahaa dhowr sano ah gaari baa la siiyay markaa cusbaa saalan idin siinaya gaarigii markaan malan 2 sano inaan watay yaa nin maalintii la siiyay joogay oo dawladda ahaa baan is aragnay markaas wuxuu arkay gaariga sidii uu cusub isaguna gadaasheeba intii gaari cusub la siiyay uu ka baxay ku kala qaatay wuxuu yiri Ibrahim maxaad ku samaysay gaarigan waxaan ku yiri adigu markaad qaadatay waxaad u qaadatay intaad ka burburin kartana ka burbur intaad ka jabin kartana ka jabi kadibna iska tur ku kala cusub gado ilaa aad maliyada xoolo kaaga ma bixin anigu inuu kaygi yahay baan ula tacaamulaan ku yiri qofkan marka lahaanshihi hadaadan beerin mashruuc ha u sameeynin dhismaha u sameeynin wadana ha dhisin horta ilaa asaga dhisto anu marka waxaan leeyahay dawladda sanad walba ribood aad qurux badan baan la siiyaa waxbarashadana waxaan ka fahnay inteena badan hadda intii hadlaysay ama walaalkay ka socday waxbarashada ha noqoto waxa laga hadlaa iskuulka sax ma la socotaan iskuulku inuu yahay hal faktor oo dadka jahliga lagaga saaro waa hal qayb 99 kala jira oo waxbarasho oo dadku u baahan yihiin aniga marka waxaan leeyahay haddii aynaan maskaxda dhisin iyo inaan waxba ku degdegin inaan wadooyin dhisno ama guryo waaweyn dhisno hadda guri weyn waxaan arkay baarlamaanka loo dhisayo Soomaaliland arag aad buu weyn yahay budget wadana loo qabtaan malaynaya imisa engineer baan haysanaa petroleum engineerina anu 3 bilood in la talinayo Mustafa waxaan ka wada hadlay waxay ahayd petroleum engineering inaan dad dirsano waliba jaamacadihii loo diri lahaa ilaa ceelkan wax ka socdo ma ogin see wax u socdaa ma ogin markaas la yiraahdo hal engineer oo petroleum engineering oo sax Soomaaliya ma joogaba 100 arday inaan diro oo Japan u diro oo Malaysia u diro miyaa muhiimadu mise waa inaan anoo hoolkan oo kale baarlamaanku ku shiraba haysta inaan dhowr 100 milyan u qabto maxaa xigmo ku jirta waa inaan dhaho ilaa aan petroleum engineering ka soo dhamaysto geedka hoostiisa waan ku shiri karaa Soomaa adeeradan inay kala bixin jiray odayaasheenni miisna mayna ku fadhiisan jiray kursina mayna ku fadhiisan jiray iyagana wax xallin jiray waxaan rabaa inaan dhaho aan dadaalkeena isugu geyno buugaas waxaan ku soo gabagabeynayaa oo dawladda ka codsanayaa in la sameeyo wakaalad la yiraahdo wakaaladda kitaabka ama wakaaladda buugga sida wakaaladda ediska wakaaladda maxaa la yiraahdaa abuurka wakaaladda soo ma jiraan wakaaladda wax kale ka shaqeeynin yaa buug soo saaray saan u geesinimo gelinaa